iyadoo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe uu 20kii bishii Febraayo ee sanadkan uu daahfuray shirka dib u heshiisiinta siyaasiyiinta beesha Sade sida weyn uga soo horjeeday siyaasadda iyo dhismaha maamul goboleedka Jubbaland iyo hoggaanka sare ee maamul goboleedka Jubbaland isla markaasina ay shirkaasi ka soo qayb galeen siyaasiyiin kala duwan oo ka soo jeeda beesha Sade iyo qaybaha kala duwan ee beesha ayna 16kii bishan ay si wada jir ah u soo saareen hoggaanka sare ee maamul goboleedka Jubbaland iyo siyaasiyiinta beesha Sade inay isku afgarteen arrimihii khilaafka siyaasadeed soo kala dhaxgalay siyaasiyiinta beesha Sade iyo maamul goboleedka Jubbaland ayaa munaasabad lagu maamuusay heshiiska ay wada gaareen hoggaanka sare ee maamul goboleedka Jubbaland iyo siyaasiyiintaasi waxa uu maanta ka dhacay xarunta Daawad ee magaalada Kismaayo ugu horeyn shirkaas oo laga soo saaray ilaa 10 qodob oo ay ku heshiiyeen siyaasiyiinta iyo waliba hoggaanka sare ee maamul goboleedka Jubbaland ayaa waxa goobta ka akhriyay afayeenka maamul goboleedka Jubbaland Cabdinaasir Seraar Ma war murtiyeed ka soo baxay wada hadaladii u dhaxeeyay dawlad goboleedka Jubbaland iyo siyaasiyiinta beesha Sade waa 25 Maarso 2016 wada hadal nabadeed oo ka socday magaalada madaxda ku meel gaarka ee dawlad goboleedka Jubbaland intii u dhaxaysay 20kii bishii February ilaa 6dii bishii Maarso ayaa wajigiisii koobaad wuxuu dhaxmaray guud ahaan siyaasiyiinta beesha Sade siyaasiyiintu waxay soo saareen 14 qodob oo soo koobaya tabashada guud ee beesha wajigii labaad ee wada hadalka oo socday intii u dhaxaysay 7dii ilaa 19kii Maarso wuxuu ahaa mid dhaxmareeyay hoggaanka sare ee dawlad goboleedka Jubbaland iyo guddi ka kooban 17 xubnood oo siyaasiyiinta beesha matalayay wada hadalka wajigii wuxuu ahaa mid si gaar ah diiradda loogu saarayay xal u helista khilaafkii siyaasadeed iyo tabashooyinkii beesha ay ka tabanaysay maamulka muddadii wada hadalku socday waxaa labada dhinac si saraaxad iyo kalsooni ku jirto uga wada hadleen dhammaan qodobadii khilaafku ka jiray waxaana gabagabadii la isku afkartay qodobada soo socda kow siyaasiyiinta iyo bulshaweynta beesha Sade ee reer Jubbaland waxay taageerayaan heshiiska la gaaray waxayna si buuxda u aqoonsadeen dawladda iyo hoggaanka Jubbaland lambar 2 in bulshaweynta Jubbaland iyo dawladdu si wada jir ah isaga kaashadaan cid kasta iyo wax kasta oo colaad hurinaya number 3 in la dedejiyo dib u dhiska iyo isku dhafka ciidamada qaranka iyo kuwa Jubbaland loona sameeyo hoggaan isu dheelitiran oo mideeya mid walba isla markaana la taageero howlgalka AMISOM qodobka afraad in beelaha deegaanka si cadaalad ah u wadaagaan awoodda maamulka iyo hay'adaha madaxa bannaan iyo kuwa xukuumadda sida garsoorka cadaaladda arrimaha bulshada nabadgelyada iyo siyaasadda number 5 in la dhammaystiro habraaca sharciyeed ee degmanimada Buurdhuubo iyadoo la waafajinayo dastuurka Jubbaland numberka 6 in la dedejiyo dhisitaanka golayaasha deegaanka ee degmooyinka iyo gobollada Jubbaland si loo helo maamul haysta kalsoonida shacabka lambarka 7 in deeqaha iyo mashaariicda horumarineed si isu dheelitiran loogu qaybiyo gobollada iyo degmooyinka dawlad goboleedka Jubbaland number 8 in la dhiso guddi gaar ah oo baaris ku sameeya wixii tacadiyo ahaa ee dhacay
naf iyo maalba intii uu khilaafku jiray muddo koobanna ka soo tala bixiyo sidii loo xalin lahaa arrintaas. Number 9 in la abuuro guddi isku dhaf ah oo ka kooban dowladda kumeel gaarka ah, dowlad goboleedka Jubbaland, UN-ka iyo AMISOM, kaas oo ka shaqayn doona sidii ay ciidamada sabca sharaaf lagu soo celin lahaa looguna biirin lahaa ciidamada kala duwan ee qaranka iyo dowladda goboleedka Jubbaland. Number 10 in qaybinta xubnaha tobanka xildhibaan ee dhiman lagu saleeyo miisaanka deegaanada iyo tabashooyinka jira. Intaas ay ku dhammaadeen halkan warmurtiyeedkii. Waxaa hoos ku qoran waxaa loogu baaqayaa dowladda federaalka iyo beesha caalamka iyo dhammaan deeq-bixiyaasha in ay taageeraan heshiiskan iyo dhammaan arrimaha la xiriiro dib u heshiisiinta oo dowlad goboleedka Jubbaland u ah mudnaanta koowaad, isla markaana ka qayb qaataan xoojinta ammaanka, horumarinta iyo dib u dhiska dowlad goboleedka Jubbaland. Billahi tawfiiq. waxaa sidoo kale goobta ka hadlay qaar ka mid ah siyaasiyiinta beesha sade ee horey uga biyadisanaa siyaasadda dowlad goboleedka Jubbaland. maanta waxaan halkan isugu nimid inaynu mara ka wada noqonno soona dhaweyno heshiiskan looga gudbayo khilaafkii iyo ismarin waagii muddada soo jiray. waxaa xusid mudan in heshiiskani uu yahay mid dhinacyadu ay si toos ah ugu wada hadleen una wada gaadheen uuna si buuxda uga madax bannaanaa faragelin shisheeye, ha noqoto mid dhexdhexaadineed ama mid dhaqaale. tanina waxay ina tusaysaa in dadka Soomaaliyeed ay arrimahooda maareyn karaan haddii la isu madax banneeyo. heshiiskan looma samayn in cid la isugu bahaysto. waxaa loo sameeyey in bulshada Jubbaland la mideeyo. looma samayn in cid kale xaqeeda lagu qaato. waxaa loo sameeyey in cid waliba ay xaqeeda hesho. heshiiskan oo ka kooban 10 qodob waxa uu dhinacyada saaraya waajibaad la doonayo in sida uu yahay loo guto. waxaan kalsooni buuxda ku qabnaa in guud ahaan dowlad goboleedka Jubbaland gaar ahaan madaxweyne Axmed Maxamed Islaam uu si gaar ah isaga xil saari doono habsami u dhaqangelinta heshiiskan. annana waxaan hortiina ka ballan qaadaynaa in mas'uuliyadda arrintan nagaga aadan aan sida ugu habboon u gudan doono. jaala madaxweyne, walaalayaal, saaxiibayaal, gaaritaan garashaa ka horeysa. garasho ayaa ka horeysa. waxaa loo baahan yahay inaynu garanno halista dalkeenna iyo dadkeennu ay waqtigan ku sugan yihiin. waxaa loo baahan yahay in wax walba loo huro loona midoobo samata bixinta qarannimadeenna iyo dowladnimadeenna sii dumaysa. waxaa loo baahan yahay in khilaafka waxduminta aynu doc iska dhigno una wada jirno dhismaha aayaha ubadkeenna. waxaan aaminsanahay in gobollada ay dowlad goboleedka Jubbaland ka kooban tahay ay yihiin kuwa ugu hodansan dalka Soomaaliya. waxaan kalsooni weyn ku qabnaa in haddii la adkeeyo wada jirka iyo walaaltinimada bulshada ay Jubbaland waqti kooban ku gaari karto horumar iyo baraare. haddaba si loo sugo wada jirka iyo walaaltinimada bulshada reer Jubbaland waxaan madaxweyne kugu boorinayaa kuguna taageerayaa inaad sii wado aadna ka daalin dadaalka aad ugu jirto doonista iyo dib u heshiisiinta dadka reer Jubbaland.
maadaama aan shakhsi ahaan aqoon u leeyahay xiriirna la leeyahay mucaaradka qof iyo qoysba dowlad goboleedka Jubbaland waxaan diyaar u ahay inaan gacan kugu siiyo dadaalkaaga dib u heshiisiinta aanan wada doono walaalaheena aan marna ka maarmayn kuna soo biirino bulshaweynta Jubbaland waxaan bulshada reer Jubbaland dal iyo dibadba ugu baaqaya inay dhinac uga bayraan kana leexdaan wadada khilaafka waxduminta ayna wada qaadaan wadada wada jirka iyo walaaltinimada oo gaarsiinaysa horumar iyo mustaqbal ayere cudurdaar waxaan halkan uga cudurdaarayaa shakhsiyaad ay ahayd inay nala joogaan iyada oo dad badan oo ahayd inay halkaan nala yimaadaan arrimo farsamo iyo waxyaabo kale ay ku baaqdeen waxaan si gaar ah halkaan uga cudurdaarayaa Barre Aadan Shire iyo Cabdi Cigaal oo arrimo lagu qancay laguna qanacsan yahay oo cudurdaara ku maqan madaxweynahana ay wada hadleen una igmadeen inuu arrintaas sidaan ku wado mahadnaq waxaan halkaan hortiina uga mahadnaqaynaa madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Shaale Axmed Maxamed Islaam oo runtii muujiyey una dhabar adeegay dadaal weyn oo ahaa anugu muddadii aan is arkaynay anugu mar walba waxaan aaminsanaa in loo dhaxeeyo asna wuxuu aaminsanaa inaan toos u wada hadalno marka labay mid noqon ama taydii baa rumoobiyo waxaan waa socon waay ama tiisii baa rumoobiyo arrintu way socon waxaan sidoo kale halkaan mahadnaq uga soo jeedinayaa nagana mudan wasiirka gaashaandhigga ee dowladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Cabdulqaadir Shacali Diin oo runtii dadaal weyn arrintan ka soo galay laakiin haddana shaqo qaran nooga maqan waxaan sidoo kale u mahadnaqaynaa mas'uuliyiinta xukuumadda dowlad goboleedka Jubbaland oo runtii ayaguna niyad sami mar walba iyo talo wanaagsan nala garab taagnaa waxaan ugu dambayn waxaan halkaan uga mahadnaqaynaa qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Kismaayo oo aan isleenahay haddii ayagu aysan dhabar adeeg samayn haddii ayagu aysan abuurin jawiga inaan arrintani halkan soo gaarteen aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waxaan si gaar ah ugu faraxsanahay dabeecadda shirka markaan leeyahay waxaan ka wadaa dhaqan inaga lumay oo sharaf ahaa oo gob ahaa oo la gumeeyay baa ii muuqda macnaheeduna waxaa weeye annagoo dhaqankaan ognahay qof walba og yahay hebel ma fadhiyo dowlad hebel ma fadhido kuwaasu ma fadhiyaan inaysan fadhiyin oo uu dhaqankeennii gobta ahaa ku fadhiyo yaan ka mahad celinayaa ilaahayna uga mahad celinaya midda labaad heshiiskan waa la galay waa la qaatay waa niyad waa dhab ilaahayna ha hirgeliyo heshiisna waa kii hirgala mid qoran maahan waa kii hirgala oo la qaato kulligayo dhammaanteen reer Jubbalandna inuu hirgalaynu diyaar u nahay ilaahayna haynoo hirgeliyo tabarteen iyo dadaalkeennana aynu ku darro waxaa intaa ii weheliya ummadda Soomaaliyeed guud ahaan waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed waxaa ilaahay og yahay inaysan ciidan ajnabi iyo caqli ajnabi iyo calaf ajnabi midna inay dowlad noqoto oo sharaf yeelato oo karaamo yeelato alla igu ogbaysan ku gaarin sababtuna waxa weeye dunidaba kama dhicin wax adduunka ilaahay samaystay weli ka dhacay
ma ahan wax la sugayana ma ahan sidaa awgeed waxaan rajaynayaa inaynu isku tashanno haddaynu Soomaali nahay waxaan rajaynayaa haddana inagoo reer Jubbaland inaan isku tashanno inaynu nabad helno inaynu isku tashanno cadowgeena inaan u mudowno inaynu ku tashanno inaynu gaaro khayraadka dalkeena inaynu la soo bixi karno waxaan shirka kaga faa'iideysanayaa inaan u hambaliyeeyo una duceeyo reer Puntland oo isku tashaday ilaahay taladoodiina ku taageeray kuna sharfay karaamana ku leh oo aan leeyahay anoo ka faa'iideysanaya nabad ilaahay iyo isku tashigiinu idinkugu jira cid idinka maqan nabad ha ka raadinina sidaad isugu tashateenna Allah idinku garab galo salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi mudane madaxweyne mudanayaal marwooyin hadal waxa ugu khayr badan kan gaaban oo la fahmo jimcihiina waa la joogaa sida aad arkaysaan wixii faktaga fagaaraha imaadaan 20 Febraayo ilaa maanta arrintii aad u gogol dhigteen oo in badan wada xaajoodkeeda iyo wada tashigeeda asagoo wajiye kala gedisan la soo socday waa inta afhayeenka uu noo akhriyay waxaan idinka codsanayaa intiina xafladda nasiib ku heshay iyo intana dhagaysanayso oo gudaha iyo dibadda joogto saxaafadda ay gaarsiin doonta dhammaan inaad nagu taageertaan heshiiska quruxda badan iyo warmurtiyeedkaas si niyad same ahne loo wada qaato hadalkan hadda anigu intaan idinku soo biiray waa kan madaxweyne ku-xigeenkii yidhi doontii baa lasoo wada fuulay isfahanka iyaga wuxuu ka soo bilowday waa muddo 8 bilood ah geeda yaryar baan soo fariisanay intaan geedka weyn imaan waxaa ka mid ahaa kii cambihii doolow oo madaxweynaha noogu yimid sanadkii hore bishii 8aad bilowgeedii waxaa ku xigay mid kaloo xamar soo fariisanay aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa madaxweynaha dowlad goboleedka dhammaan hoggaanka Jubbaland dulqaadka iyo waqtiga ay siiyeen in la wada hadlo la heshiiyo la isafgarto waxaan u mahadcelinayaa baarlamaanka Jubbaland oo ayagana sida xeerka Jubbaland uu qabo mar walba madaxweynaha siinayay waqti si arrintan sharafta badan maalin maalmaha kamid ah loo soo gaaro waxaan u mahadcelinayaa ciidamada Jubbaland kuwa qaranka ciidamada AMSOM oo ayagana noo suurtageliyay ammaanka iyo sharaftaas aan isku fahanno waqtiga dheerna sida nabadgelyada leh sharafta leh xishoodka leh aan ugu dhex nooleennay magaalada Kismaayo annagoo habeen iyo maalinba soconnay maalin kalina aanu arag waxaanu dhibsanno aad iyo aad baan ciidamadaana ugu mahadcelinayaa dhammaan waxaan u mahadcelinaynaa bulshada Kismaayo hadalka inaan gaabino weeye annaga taas ayaa lilaahi naga ah waxaan mar labaad iyo mar aan la soo koobi karin u mahadcelinayaa madaxweynaha oo mas'uuliyad weyn dhabar ka saartay go'aansaday dadka reer Jubbaland in cid kastoo wax tabanayso waqtigeeda la siiyo lala xaajeysto la qanciyo waxay xaq u leedahay loo sheego aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waqtiga dheeraa oo arrintaa uu siiyey oo dulqaadka lahaa inta haddaan idhaahdo mudanayaal marwooyin annaga waxaan u baahannahay oo dhammaantan na gaari karo waa inaan helno nabad iyo horumar nabadda iyo horumarku nolosha aadanuhu waa ciyaarta qoris dhiibka oo kale nin walba maalin buu dhashaa maalinna waa dhintaa marka maalintuu dhashay iyo maalintuu dhimanaya intuu dhaxayso maxaa dunida ku soo kordhiyay oo cidda uu ka tagayay uu ugu tagayaa oo u dhiibiyaa weeye annaga carruurteenna iyo waalidiinteenna waxay naga sugayaan nabad iyo horumar inaan helno nabadda iyo horumarkana waxay ku imaan kartaa
annagoo isku calool ah oo u joogsanno danta guud inaan meel marino arrintaas waad la socotaan gobolladeenna maanta xaaladday ku sugan yihiin waad la socotaan cadowga gaamuray ee dhexdeenna ku nool waad la socotaan xaaladda aan ku sugannahay marka qof kastoo inaga mid ah waa inuu isgo'aamiyaa inuu arrintaa wax ka qabto oo aan nabaddii u wada guntanno nimankaas markay maanta puntland ku xadgudbeen maalmihii lasoo dhaafay waad ogtihiin xaaladda ay la kulmeen tabardarradooda ayagoon qofna dilin khasaarana geysanin baa nin isdhiibo iyo nin dhinto iyo nin dib u soo cararay u kala baxeen sababta waa maxay waxay dhex galeen ummad dowladdoodii iyo xooggoodii iyo shacabkoodii ay hal niyad ah yihiin bay dhex galeen halkaa way halka khatarta ka soo wajahday sidaas la mid ah annaga haddaan reer Jubbaland nahay waa inaanu go'aansanno inaan sidaa yeelno nuguma dhex noolaan karaan bilayaal nuguma dhex noolaan karaan sanadayaal haddaan annaga isku niyad noqonno oo shacabka yaga iyo annaga aan hal meel aan usoo wada joogsanno waqti siino nin walba uu isgo'aamiyo in waqti gaaban arrintaa laga miri dhaliyo xagga ammaanka aan tilaabo ka qaadno annagana waxaan ballan qaadaynaa wixii maanta ka dambeeyo inaan kala qayb qaadanno meelaan waa laga maqnaadaa baalidan waa laga muuqdaay inaanu idinku soo kordhinno wax fikir ah xoog ah xoolo ah garasho ah oo aan siinayno in nabadda la horumariyo nimankaana aan ka adkaano wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mahadcelin waxaan u soo jeedinayaa maamulka Jubbaland gaar ahaan madaxweynaha maamul goboleedka iyo mas'uuliyiinta galabo sida ay noo soo dhaweeyeen dhammaan xubnaha dhammaan mas'uuliyiinta maamul goboleedka Jubbaland gaar ahaan madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaan iyo mas'uuliyiinta galabo sida ay noo soo dhaweeyeen ama saga xilsaareen arrintan inay noqoto mid lagu guuleysto waxaa hubaal ah oo aad iyo aad uga mahad celinaynaa jawiga iyo wada shaqaynta iyo soo dhaweynta ay noo fadhiyeen dadka deegaankan degan Kismaayo nooc kastaba ha ahaatee gaar ahaan mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland waa midda keentay wada hadalkan iyo sabida ah ee aan ku nimid oo aan uga nimid Muqdisho iyo gobollo kale ee ka mid ah gobollo kale ka mid ah Jubbaland inaan la galno sidii sameeyo wada hadal iyo heshiis mas-uuliyiinta uu hogaaminayo mas-uulka madaxweynaha maamul goboleedka Axmed Maxamed Islaan runtii arrinta iyada ah waa midda keentay maanta xafladan goobta aan u fadhino oo lagu akriyay heshiiskii la gaaray ee lagu gabreeyey xafladatan gunaanadka ah ee wada hadalkii socday muddo gaarahayo bilo badan oo runtii sana waxay ka dhiman tahay uu soo socday wada hadallada laakiin bisha ugu dambeysay oo hadda halka la isugu yimid muddo bil ah lagu gaaray lagu soo gulaanay aniga warka aada u dheerayn mahayo mahadcelintaas ayaan kusoo gabagabeynayaa waxaan rabaa inaan sheego xuso in la wada hadlo oo Soomaalida waxay ku maamaadaan wada hadalna waa heshiis meesha wada hadal baan nimid wada hadalkaan ku weynaa runtii mirihiisa waa midkaad maqlaysaan oo halkaan laga akhriyay wadagudyeedka iyo raggii kale oo mas-uuliyiinta siyaasiyiinta ahayd oo ka hadlay halkaan in lagu soo afjaray balse in lagu gaaro heshiis wasaalada waxaan aad iyo aad waxaan rabaa inaan qiro heshiiskan heshiis la gaaro waa sahlan tahay laakiin waxaa ka mudan fulinta heshiiskaas simiya samile samile waxaan u xusayaa annaga oo annagana markay ka qaban doono inuu noqdo heshiiskaas hirgelintiisa mid taabagalo inuu noqon doono mid taabagalo oo noqdo mid sidii loo akriyey ama loogu heshiiyey u hirgalo
aad iyo aad u mahadsan. waxaan isu taagay inaan idhaahdo kelmado yar oo kooban. waxaynu caddaynaynaa heshiiskii wakhtiga dheeraa ee muxuu ahaa halkan aynu ku jirnay. waxaynu ugu mahad celinaynaa gogoshii sharafta badnayd iyo amnigii iyo sugnaashihii doodaasi ay muxuu ahaa u dhacaysay dowlad goboleedka Jubbaland iyo guud ahaan shacbiga reer Jubbaland baynu ugu mahad celinaynaa. waxaa la oran jiray maanta waa dhulbahante iyo dharaar, mahmahyo Soomaaliyeed bay ahayd. waa la heshiiyey. waxay naga dhaba heshiiska aynu halkaa ku soo qornay baa naga dhaba. wax dushayada dama laga raadinayaa ma jiraane gaarigii uu sheegay madaxweyne ku-xigeenka ayaan wada saaranna insha allahu. haddii alla idmo waxaynu rajaynaynaa inaan soo kordhinaa isbeddel ee dhanka amniga oo loo tillaabsado iyo dhanka horumarka iyo muxuu ahaa meelihii bannaanaa oo nagala fiirinaya oo lalahaa war kuwaana ka maqan oo muxuu ahaa yaa bahashu xagaldaacinaya. kaalinka waa soo buuxinay guud ahaan shacbiga ee reer Jubbaland ee Soomaaliyeed. dib u heshiisiinta iyo talooyinka iyo waxyaabihii aynu ku jirnay beel ahaan ugumayna jirin. guud ahaan waxaan ugu jirnay waxa midnimada iyo horumarka iyo danta noo wada ah baynu ka hadlaynay. marka waxaynu leenahay sidaa ha loo qaato. aad baad u mahadsantihiin. waa idinkaga mahad celinaynaa dadaalkii ay nala gasheen. waxaan warkayga ku soo koobayaa dalka wuxuu u baahan yahay in la xureeyo u baahan yahay. mar haddaan isu nimid wiilashaa yaryar oo amnigii gacanta ka bixiyey waxaynu leenahay muxuu ahaa waa ka adagnahay aan iska kaashanno. taasna waa idinku dhiirigelinaynaa. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullahi. kadib waxaan annaga Soomaalidu waxay ku maamaadaa hal galgalatay labaceeda ma qarsato. annaga wixii aan muddada dheer dib heshiisiinta aan ku soo jirnay waa inta uu akhriyay afhayeenka dowlad goboleedka Jubbaland. wixii aan wadnay waxaan keennay fagaarahan keenna meeshaasay yaallaan. waxaan u dhiibnay dowladda Jubbaland ayaan u dhiibnay. maanta wixii ka dambeeyana waxaan ballan qaadaynaa in haddii la lahaa qolaa gooni ahayd ama jifa ha loo dhigo ama siyaasiyiin ha loo dhigo ama Soomaali qaybteeda ha loo dhigo ha la yiraahdo. annaga maanta waxaan ballan qaadaynaa waxaan garab taagay dowladda Jubbaland baan nahay. xoog iyo xoolo iyo xarquun baa iyadaan la garab taaganahay. meeshaasay yaallaan. waa u dhiibnay fulintooda iyo dhaqaalahooda ayadaan ka rabnaa. intaas waa markaan ka gudbo qaybta labaad oo rabo aan ka hadlahay waxaa weeye maanta waxaan leenahay hogaamiye dhab aan leenahay. waxaad ogtihiin 8 bilood ka hor baa wuxuu noogu yimid gobolka Gedo. shir baan ku galnay. wuu ballan qaaday inuu fulinayo. wax ma dowlad ajnabi ah oo shirka nala fariistay oo nala galay ma jiraan. halkaan ay maanta timid ummadda Soomaaliyeed waxaa la rabaa inay ogaato dib u heshiisiinta ciddii isqabsata ayada ayaa xalka keeni karta. gacan shisheeye waxba ma keeni karaan. maanta aan ku garab istaagno dowlad goboleedka Jubbaland heshiiskay gaartay. shacabka haddaan aan ku garab istaagno. maanta waxaad ogtihiin laga bilaabo Kismaayo oo halkaana ilaa Doolow dadka waxa mari karaa waa wax yar weeye. waxa ku jira oo cadowga noo ah oo dadka inta ay la mari laayeen waa wax yar weeye markii loo fiiriyo tirada dadka.
sida ragga hore ay u yidhaahdeen wax lala diriro oo shabaab ka jilicsan ma jiraan, wax ka dhib badan oo taagan oo Soomaaliya ku dhex jirana ma jiraan. waxna ka xisho in maanta aan la dirirno shabaab oo nu guntano oo qof walba kii lacag raadinayo ganacsato ahaa iyo kii injoo ku jiray intaad dhigtaan aan iska xoreyna cadowga oo dadkeenu ay noqdaan dad isu furan ay noqdaan. intaana waxaan rabaa waan ku baraarujinaya aad iyo aad baan u mahadsantiin mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha Jubbaland oo dadaal dheer runtii galay oo qof walba ugu tagay meesha uu joogay baan u mahadcelinaynaa. waa mahadsantiin. assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. ilaahay waa mahad iskale subxaanahu wa tacaala allihii noo waafajiyey kulankan qiimaha badan oo kulanka nabadeed ah oo kulanka israac ah oo runtii ah mid lagu farxo sida madaxweyne ku-xigeenka dowladda Jubbaland uu uga soo sheekeeyey muddo dheer iyo ahmiyadda badaneed oo uu lahaa shirkan. runtii haddii raadkeeda la qaado wax soo koomahayo ma ahan. waxaana dareemaynaa maanta oo munaasabaddu nafteeda ku soo aaday usbuucii ciidda inay tahay oo nafteeda xurmo iyo sharaf kale tasii ah. waxaan leenahay waa maalin abshiraysan oo aada u khayr badan. waxaan dareemaynaa inay maalin jimcaha tahay. hadalkan uu badan karo siyaasiyiinta rabta inay hadasho ay badan yihiin. waxaa xusid mudan in shirkan wanaagga iyo heshiiska iyo is-afgaradka iyo doonta la wada raacay ama gaariga la wada raacay madaxweynuhu uu ka soo sheekeeyey looga soo gudbay wadahadal iyo tashi fara badan kadib guul inay tahay inuu yahay mid ay annagu gobasha aan dhignay oo dowlad goboleedku ay gobasha dhigeen oo madaxweynaha dowladda uu ku baaqay aysan ahayn mid ay beesha caalamka iyo shisheeye kale midnana ay isku kala keeneen. waxaa xaqiiqo ah dadka Soomaaliyeed 20 iyo dhowrkii sano oo burburkii iyo dhibaatada aan ku soo jirnay in beesha caalamku ay hargan noo dhuleysay, shirar badan loo qabanayay, la isku keenayay, midba dhisi gaar ah dhegta war loogu sheegayay. laakiin kan inuu ka duwan yahay kii asaga ahay annagu aan isku nimid wada tashanay wax isla garanay guul aan ku soo dhamaysanay. taas Ilaahay waa lagu xamdi karaa. waxaan mar labaad mahad jaayis ah ku leh madaxweynaha dowladda Jubbaland Sheekh Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo asagu sharaf u lahaa inuu gobashaan dhigo. cid badan oo damacday inay gacmo fara badan ku yeelatana u sheegay inaan tashan karno, waxna isdhihi karno, heshiina karno, dad wada dhashan aan nahay. aad iyo aad baa u mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. waxaa sidoo kale goobta ka hadlay ugaas Cumar Xiirey oo ku hadlayay afka odayaasha dhaqanka iyo wasiirka arrimaha bulshada Jubbaland Macalin Maxamed. waxaana sidoo kale hadalkaasi qaatay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Jubbaland. marka mahadnaq labaad waxaa iska hoggaanka Jubbaland madaxweynaha iskale xaqiiqada dhabta sidaa weey lama sheegsheegayo wuxuu ninku xaq u leeyahay loo diiday baayina reer Jubbaland waa isnaqaanaa anoo mar hore aan samiray laakiin hadda meelo badan oo intuu nagu hogaamiya aan ka samiray oo haddana aan guul ka gaadhnay baa jira. annaga reer Jubbaland haddaan nahay waan tawaawacaynay waxaan la warhaanta ama biyaha meel ka sidaysa cabdi shiraamu meel ka duleeyaa baan lahayn. waa ilaahay mahadiis haddii maanta annagu waxaan ku hadlayaa afka Jubbaland salaadiinta Jubbaland iyo shacabka waan ku hadlayaa. waa ilaahay mahadiis madaxweyne waa mahadsanta. dadku waxa laga yaabaa si kale ay u fasirtaan ha u fasirtaan haday rabaan war ninkaas hoggaankiisii annagu aan diidnay maanta waan ku guuleysanay. waxaa mahadnaq labaad leh kuwii ka yeelay talada ugu geeyay ayagana mahad labaad deelay oo cabdi shire uu ka yahay rag waa kala daraay ninkaas oo daraay aan adeerka waa aan sii gudbo nabadda nin waliba dambe u taa. laakiin waxaan rabaa inaan halkan ka sheego annaga reer Jubbaland haddaan nahay awal bacol maan nahay. shacabka Jubbaland col muusan ahayn. waxaad ka garan kartaan ragga meesha ka hadlayay wax shacab ah keligay baa ku jira rag oo dhan siyaasiyiinta bay ahaayeen. awta qoodha Jubbaland isleeyaysay shacabku isma leeyahay marxaatigeedana waa la qabaa.
afka gaaris iyo afka doolo meesha ugu dambaysa geeri waa ka goloshibar iyo afmadow iyo gooble iyo qooqaani iyo xagar buu cabahaya bangal buu joogaa geeri beeshan hadda le anagu beel baan naho annaga aan reerka annaga bangal buu geeri daaqahaya waxa islaynaya waaye marka waaye war cabdi sharaawi beesha sade in la dhaho anigu marraba waan garab marsana beesha sade col ma qabto jubbaland col qabiil ah ma jiro ninkii le wuu jiraa halka wataa soo istaago nimankiina siyaasiyiinta islaynhaye haddaad idinkiiyo madaxweynihii jubbaland isu tagteen oo heshiiseen siyaasiyiintii jubbaland iyo waxaa la dhahahayaa jubbaland oo siyaasiyiinteedu heshiiseen baa la dhahayaa lama dhihi karo arrintaa waxaan saa u leehay beesha sade jubbaland bay ka mid tahay salaadiinteeda way fadhidaa cilmini xiniyaa isku haysateen hadaad ka heshiiseen oo jubbaland soo raacdeen siyaasiyiintu way mahadsantahay aad baad u mahadsantihiin laakiin waxaan rabaa anigu waan raacinayaa biduuni shuruud waa inay noqotaa wiilashaas annagoo far baa la soo qoray warqad baa la qoray xaggaa laga waxeeya ma rabna annagu waxaan u dhegtaagayna waxaa weeye ee maanta adduunka aan maqashinayno nabad baa la gaaray ilmaada reeyaalow nabaddaas waxba ha ku xirina intaa waxaan raacinayaa dadku waa mahadsan yahay madaxweynaha waxaa ku haray guux badan baa jiro oo dowlad baa la dhisayaa baa laleeyahay kuwa ka yaabka qaba waa mahadsan yihiin kuwa aan rabna inay soo noqdaan waa mahadsan yihiin kuwa aan rabin inay soo noqdaanna waa mahadsan yihiin inta kulli waa mahadsan yihiin inta nabadan jecel ee ku farxaysa waa mahadsanta inta aan rabinna ma mahadsana kuwaas السلام عليكم ورحمة الله شوف لنا حاجة راعدة هم ذوذ نبضة ما أنت عبد شراوة ده كان كوش عليه هو هم ذوذ كنا نعبا كوش عليه أداروا معارو باشا سلام halka bidixna markaan fiiriyo raggaan u jeedo iyo markaan miigta fiiriyo raggaan u jeedo waa raggaan la dhutinayna la naafsanayna ka hormari lahayn hadday maanta fadhiyaan ilaahay waa mahad iska leh alxamdulilah laakiin laba arrimood baan dhahayaa shirkan maanta waxa laga sheego wax ciyaar ma laba arrimood baan dhahayaa waxaan dhahayaa saad u hadasheen eed u aqbasheen ha loo fuliyo madaxweynuhuna siduu nabadda ugu gogol dhigay aniga hadday talada ay tahay shirka halkan ma soo gaadheen ogaad waa tala kale laakiin meel fiican buu ku dhammaaday madaxweynahana waxaan kula talinayaa waxa lagu heshiiyey inuu fuliyo od soo nabad maaha wax la rabo soo israac maaha wax la rabo soo cadaalad maaha madaxweynuhu wuu mahadsan yahay meel fiican buu wax soo gaarsiiyey wuu soo hogaamiyey waxaan rabnaa wuxuu gaadhay ee lagu heshiiyey inuu fuliyo idinkana waxaan rabnaa wixii aad ku hadasheen inaan wax ka soo noqonin markaas waxay ku dhammaanaysaa guul iyo isdhexgal iyo baraare dad isku meel degaan xuquuqda oo dhan waan isku leedahay waxa laga sheegayo aan ka rumayno nabadda waan qaadanay sida loo qaatay aan u fulino war dambe yuusan ka imaanin asalaamu calaykum waraxmatullahi salaan kadib dib u heshiisiintan waqti fogay soo bilaabatay sidaad la socotaan waxay soo martay marxaladooyin kala duwan waxaa ugu horeeyay Addis Ababa agreement muqdisho ku xigtay aniga saaxiibkay Cabdishir aan ka wada qayb galnay Kismaayo ku jirtay shir dib u heshiisiinado beelaha deegaanka degan oo mid loo qaabilay ku xigtay sidaad la socotaan dawladda Jubbaland gebi ahaanteeda waa dawlad dib u heshiisiineed maantana marxaladan waxaa ka soo qayb galay rag loo hanweynaa iyo asxaab badan oo loo hanweynaa kaalin mugle ku leh siyaasadda shirkan maanta asagana xafladiisii baa loo fadhiyaa shirkii waayahan soo socday ee ka socday magaalo madaxda Kismaayo gunaanadkiisii sidaa daraadeed waqtigoo ciriiri ah waxaan leenahay gogasho way fidsan tahay cid kastoo qabta tabasho ee Jubbaland ka mid ah
gogosheedii way fidsan tahay sidii hore aan u sheegnay cid kasta waa la qaabilayaa waana la soo dhowaynayaa waana looga jawaabayaa wixii ay tabanayso waxay xaq u leedahayna waa helaysaa wixii kalena ummadday ula mid tahay dowladdana waa horu socod waa dib u heshiisiin sidaa daraaddeed waxaan codsanaynaa soomaali guud ahaan dibadda iyo gudaha inta joogto shirkaa inay taageeraan waa ka codsanaynaa wixii xuman oo hore loo soo sheegi jirayna war xunoo lagu waa inay noqoto xalay dhali bahasha ay noqoto sidaa daraaddeed shirku waa noo furan yahay wabilaahi towfiiq السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ugu dambeynna waxaa goobta ka hadlay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe iyo ku-xigeenadiisa waxaana hadaladooda ka mid ahaa waxaan u istaagay kaliya inaan idiin sheego sida walaalahay siyaasiyiinta ay u caddeeyeen in heshiiskan uu dhab ka yahay annagoo inaan u caddeyn inuu qaadashihiisa dhab naga yahay 100% waan qaadanay madaxweynaha wadatashiga oo noogu imaanayay intaba hadda anagu rabin soo ma gaarteen intaa markii meel marayay caqabad baan ka bixinayn waxay hortiina ku ballan qaadeynaa sida cabdishir oo ballan qaaday sida daacad nooga yahay oo annagana daacad nooga yahay wallahi billahi tallah heshiiska daacad nooga yahay hortiina ku ballan qaadeynaa cabdishir waxaan ku soo dhaweynaynaa kaalinta oo dib u heshiisiinta inkastoo mudane cabdibaalle meesha ku cariirinayo laakiin waa iskaashinaya male annaga mucaarad soo xaroodo Jubbaland والحاجة ku galo shuruudaan ku yimaadana ugu horeeyay cabdibaalle iftiin ugu xigay xasan xaaji waxaa keenay cumar buraale war meesha waa la kala dambeeyaa idin maanta timaadeen soo dhawaada marti waxa naxday idinka naameen soo dhawaada doonta soo fuula waa nagu balan meesha waa la soo kala horeeyay nimankan odayaasha shiriyo isin karameyno isku maqaayid baan ahayn isku miis baan ahayn haddii laba sano miiska nooga dambeeyeen hadday yimaadeen waa nagu daadeen adeele waa nagu daadeen sida uu sheegay cabdishirina annaga maamulka daacad buu naga yahay waa ballan qaadeenaa wixii la isku afgartay laakiin idinkaaba hadda doonta saarane cid aad magan uga tihiin maleba qodob baa loo furinayaa ummadaasaa kala mid tihiin baashana waxaa fiican dhadhanka inoo fiicnaado mar haddii liid waa la heshiin nabad baa la qaatay sida ugaas uu sheegay inaan shuruud loo dhiginba oo la yidhaahdo nabad aa la qaatay fulinteedana adeeg kuu taallaa kow ilaa miiskaa oo fadhidaaye qodobada baa loo fuliyo tan labaad Jubbaland haddaan usoo noqdo macalin maxamed aaba sheegay war waxaan hayna Jubbaland baa ka jirta Soomaali meesha maraysa u jeedaaye war Jubbaland aan ku fara adeegno Soomaalida waxaan ugu tali karnaa ugu talino Jubbaland aan ku fara adeegno aan ku midowno aan isugu nimaano aan istaageerno maanta wixii ka dambeeya annagu aan noqono ulii diirkeen ummadana ha nagu dayato ummadii ulii diir noqoto cadow kasta waa ka adkaataa horumar kastana waa gaartaa waxaan rabaa inaan mikrofoonku soo dhaweeyo ona mahad celiyo dulqaadkiisa dadaalkiisa dib u heshiisiintiisa macalinka waa sii dhoobdhoobayahay annagu haddii macalinka talaga u dhiiban lahayd intaba laysma soo gaarin ruduruboo sheegay marka odayga dhammaantiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mudane madaxweyne mudanayaal iyo marwooyin munaasabadan maanta loo fadhiyo waa munaasabad aad iyo aad u weyn waa munaasabad siduu gudoomiyaha dib u heshiintaba u sheegay ilaahay loogu xamdinayo looguna mahadcelinayo maxaa wacay waa munaasabad aad iyo aad u ballaaran haddii aan maxay u ballaaranta aan idhaahno waxa weeye shirki dib u heshiinta ayaa maanta kusoo garaanudna halkan ama xafladiisii weyneed baan maanta meeshaan ku dhiganaynaa saasaa waxaa la dhihi karaa waa munaasabad aad iyo aad u ballaaran mudane madaxweyne mudanayaal iyo marwooyin shirkan dib u heshiinta ee haatan loo fadhiyo ee maanta gabagabadiisii iyo xafladiintiisi loo fadhiyo wuxuu soo maray marxalado kala gedisan sidii Jubbaland bay u ahayd dowladda Jubbaland loogu tilmaamay dowlad dib u heshiisineed
shirkan wuxuu ka mid ahaa shirarka dibashiinta ee hore ee lasoo qabanhayay aad iyo aad buuna muhiim noogu ahaa ama munaasabad noogu lahaa waa shir soo maray marxalad kala gedisan la madliyey wax badanna madasha loogu talagalay aanan qabsoomin waxaa ilaahay mahadii ah inuu shirkan madaxweyne iyo mudanayaal iyo marwooyin uu noo bilowday oo nagu daafurtay halkaa haatan aan joogno howlkan daawad ee Jubbaland shirarkeeda lagu qabto bishii February 20-keedii 20-ka bishii February laga soo bilaabo ilaa iyo 20-ka bishii Maarso oo uu noo soo gabagaboobay muddo bil ah waxaa socday wadatashi iyo dib u heshiisiin ku bilowday haddii hoos ay wax u jireen in la wada hadlo shakhsi koox group iyo dhammaan dadkii ka soo wada qaybgalay ay wada heshiiyeen waxaan jaallo madaxweyne adiga iyo mas'uuliyiinta kale ee halkan ka soo qaybgalay idin cadaynaynaa marxaladaha shirkan uu soo maray waxay ahaayeen marxalado aad iyo aad loogu farxi karo oo siduu u sheegay gudoomiyaha dibashiintaba la dhihi karo wixii hore ha laga talaabsado oo ha loo talaabsado wax cusub ama Jubbaland cusub ama waa cusub mudana madaxweyne mudanayaal marwooyin waxa lagu farxa ah shirkan oo munaasabad aad iyo aad u balaaran ahaa lahaana muhiimad aad iyo aad gooni u ah maxaa yeelay Jubbaland hadday joogto dalka gudihiisa iyo dibadiisaba ay u dhagtaagahayeen maxaa ka soo yeeri doono muxuu ku dambeyn doonaa maxay noqon doontaa islaha wuxuu ku soo gabagaboobay si aad iyo aad farxad u leh israac iyo midnimo iyo Jubbaland oo hal meel ah looga soo wada jeesto buu ku soo gabagaboobay jaallo madaxweyne shirkan haddii aan ku sii daro muddadii uu shirkan socday waxyaalihii looga hadlayay ama mar walba aad loo saarayay maxaa la yiraahdaa focuska loo saarayay ama targetka ahaa wuxuu ahaa midnimo isku duubni iyo wax wada qabsi qodobada ugu muhiimsan intaasay ahaayeen insha Allah ta'ala madaxweyne adiga iyo mas'uuliyiinta kala gedisan ee shirka iyo marwooyinkaba ka soo qayb galay shirkan waxaan idin cadaynaynaa shirkii mar haddii uu guuleystay waxyaalihii ka soo baxay oo la isku afgartayna laga hadli doono oo la aqrin doono muxuu la yiraahdaa qodobadii lagu heshiiyey iyo communique-gii la aqrin doono waxaan sharaf iyo karaamo noo ah dadweynaha reer Jubbaland bishaaro u ah meel kastoo joogaan in maanta ay dhalatay Jubbaland israacsan in maanta ay dhalatay Jubbaland aan kala qaybsaneen in maanta ay dhalatay Jubbaland hal meel u wada socoto intaas waxay noo tahay wax aad iyo aad loogu farxo hadda ka hore madaxweynihii qaranka Soomaaliya Allah u naxariistee Jaal Maxamed Siyaad Barre mar uu halkaan yimid ayuu mashruuc furahayay mashruuc ku ah ma garanayo horena marar badan baan oo sheekeeyay markuu mashruuc furay oo maqasku isu saaray yaa wuxuu yiri toosh buu soo qaatay karbuuno dhulku ku dhuftay way kala jabtay wuxuu yiri ha naga harto kismaayay kistaadii karbuunada ha naga harto saasi ku harto karbuunadii nal baa la daaray waxa maanta madaxweyne mudana madaxweyne adiga iyo mas'uuliyiinta meesha fadhiya jaallo madaxweyne mudanayaal iyo marwooyinba waxaan hortiina ka cadaynaynaa ha naga harto wax la yiraahdo beelaha ka mid ah Jubbaland banaanka ka taagan ha naga harto wax la yiraahdo looma dhama iyo wala kala maqan yahay ha naga harto waxaan ballan qaadnay oo beesha ay ballan qaaday oo siyaasiyiinteeda ay fadhiyaan ra'iisul wasaarayaasheeda ay fadhiyaan maxaa la yiraahdaa ummadii reer marwo iyo mudane iyo mas'uulba ay fadhiyaan iyo odayaashooda dhan ay fadhiyaan oo afkooda ay ku hadli doonaan waxaan cadeynayaa anigu marxaladihii shirku uu soo maray baan xiriiriye u ahaa waxaan u ahaa wiil baan u ahaa waxaan u ahaa maxaa la yiraahdaa isku xiraan u ahaa waxaan u ahaa meel ay tagaan ninka u dabagalhayaan ahaa anigoo dhinacna ka ahaa maxaa la yiraahdaa hogaamiyaashii Jubbaland dhinacna ka soo jeeda beeshi anigu laftirkeyga marka maanta kodol badan inaga dhacdo malaysaa war beeshaada away waa dhacdo malaynayaa waxaan cadaynaynaa beeshi ka mid ahayd Jubbaland beelihii deganaa beel ka mid ahayd inay maanta baski raacday horay ka raacday dhaxda ka raacday gadaal ka raacday riixi doonto dhooqada ka bixin doonto wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu islaamka bacdi waa jimco wanaagsan waxaana rajaynayaa inay marka siyaalo badan loo fiiriyo ay tahay munaasabad farxad iyo wanaag
waxaan rabaa inaan idiin sheego waxaa laga sugayay waxay ahayd shir baan meeshan ku lahayn muddo dheer gogol baa taallay Jubbaland gogoshaas oo ah gogol nabadeed oo aan doonayna inay matal u noqoto Soomaaliya ma aha gogol maanta la xidhayo ee waa gogol horena u furay siina furaanaysa waxaan raadinaynaa ay tahay Soomaaliya oo xal waara gaadha nabad waarta ku wada noolaata waayo iyo taariikhdeeda dib u soo xasuusata waxaan aada u filayaa haddii hadda aynan dardar gelinin Soomaalinimada midnimada walaalnimada inay dhammaan doonaan jiilkii Soomaalinimadu ku dambeysay garanayay dowladnimo garanayay Soomaali waxay soo ahay garanayay Soomaalinimadu meeshay taagneyd waxaa soo hari doonaa ay noqon doonaan wiilal iyo gabdho da'yar oo dowlad la-aan ku dhashay wiilal iyo gabdho da'yar oo markaad weydiisa adigu yaa tahay ka odhanaya I'm Canadian I'm Swedish I'm Dutch halkaas galaya oo u haysta jinsiyadda uu leeyahay midda uu qaxa ku tegay ee uu baasaboorkooda soo qaatay ku faanayo oo sheeganaya Soomaalinimadu ay noqonayso mid laga guuray oo mahjuura ah sida luuqadeedaba hadda looga sii guurayo maanta markaan xamar iyo dowlad goboleedyo kale ka socdo dowlad goboleedka Jubbaland waxaan yidhi waa in af Soomaaliga uu noqdo ka koowaad xafiisyada dowladuna ay ku shaqeeyaan waxaa fadlan sacabka wada iska daaya culayska jira waxaa kow ka ah xafiis kasta oo warqad qorayay warqaduu qoraya ingiriishku kusoo qoraya sababtoo ninka uu qoraya wuxuu rabaa in ingiriishka loogu soo qoro luuqadii waxay noqotay markaa luuqadii laga guurayo ma aha in luuqada laga guurayo waxaan idin tusi doonaa haddii hadda dadkaan hadda 40 iyo 60 u dhexeeya ayna hadda daba qabataynin iyadoo jinsiyadana laga guuri doono waana wax iman doonta midda ah la ogaado sida halkaa loo qaato waxaa soo ahay haddaynan Soomaalinimadeena iyo midnimadeena iyo qarannimadeena aynan dib u raadin waxaan idiin sheegayaa inaynan innaga Jubbaland aynan jiri doonin wadayna jiri doonin siina jiri doonin waxa wax lagu yahay inay tahay Soomaalinimada wadaniyadda iyo waxa dadka ka dhaxeeya isku waxaan rabnaa arrinta Soomaaliya maanta waxay maraysaa xaalad adag oo kala guura horaan idinku sheegay siyaasiyiintii damacoodii iyo tuhunkoodii iyo hamigoodii wuxuu noqday 2016 iyo yaa soo baxaya ka baarlamaankii aniga station halaisiyo baarlamaankana sii jiro ka executive-kii sidan aan kusii jirno waraan sii durugsanno sidan ha ahaato waddankiina ilmo bad ku dhaca hooyo agoontooday carruur yaryadoo lagu xasuuqay meel dhibaato abaar webigii shabeellood garanaysaan waqtiga ugu dambeysay inuu gulo oo dhexdiisa meelaha qaarkeed banooniga lagu ciyaarayo halkaasaan marayno waxa aan taaganahay iyo siyaasiyiintii iyo waxa yaalla iyo maca internationalka waxa laga hadlayo nin kastoo kula socda wuxuu kaala hadlayaa abril shirka hala qabto 2016 ha laga hadlo yaa mas-uul noqonaya xaggay ka imanaysaa kay yeelaysaa waddankii iyo dadkii o dhan gacantay ka baxayaan waxaan rabaa inaan idiin sheego maanta waad arkayseen khayr alaasiya reer Puntland nimankii munxarifiinta ahaabaa ugaarar qaaday Puntland bay duulaan ku qaadeen ilaahay baa ka higiyey shacab iyo ciidan iyo mas-uuliyiin wada socdaa intay isugu tageen yaa godad laga soo guray waa 14 jiro 12 jiro 15 jiro iyo arkaan ilmuhu midbaa wuxuu leeyahay ani hooyadii ma oga inaan dhintay isaga laftiisaan ogeyn inuu dhintay iyo inuu nool yahay aad baan waa waxaan ku taageerayna reer Puntland waxaana leenahay waa guul ilaahay uu siiyey intaan kuma eka deegaankan maanta aan joogna kafarkan oo dhan iyo tuulooyinkan waxaa hadda urursan 165 ilmood oo ka ugu weyn waa 14 jir oo tababar la siinaya warumada daayartii ugu yaraan halkaa marayso ee la xasuuqayo ee la leeyahay kaale shahaadad qaadanaysaan intaad ka maba garanayo shahaadadu waxay tahay cilmigeedii ma laha
shahiidku wuxuu yahay ma garanayo halkaa lagu shubayo waxa u haray maxay tahay waayo cidday sugaysahay waan dhammaanay hadda odayaashan kulli dhan bay u bateen waa dad hadda wada duqoobo waxaynayo jiilka idinka dambeeya kaa dibadda ka keenteen ee markaa meel u hayo walaga qaarkood nolosha ama ay ka dhaceen laba xaalay noqdeen mid nolosha ka dhacay iyo mid intii midiyaha ka fiirsaday internetka galay oo isaguna daacish baan qaadan iyo hebel baan qaadan intuu yidhaahdo meelo kale ka baxo suuriya iyo taga waxaa ku haray waayo cid gacanta wax ugu jirtaa ma jirto hadduu marka hore qofku tarbiyada ilmihiisa ka gelinaana waxaa laleeyahay ilmahan darbaxdo waa lagaa wareejinaya ganaa lagu samayn waxay la tahay nimayo dad waaweyn oo maanta soomaaliya waxgaradkeeda iyo cuqaasheedii iyo siyaasiyiinteedii iyo culimadeedii iyo hooyooyinkeedii maanta halkan in badan baa ka joogta soomaaliduna waa inta mundulka ku jirta iyo in kaloo munduleeyo kale ku jirta waxaa muhiima dadka soomaaliyeed inay isku tashadaan oo ay tashadaan oo wanaagooda iyo horumarkooda iyo soomaalinimadooda dib uga fakaraan marka aan midda guud ilaaliyo reer jubbaland maanta markaan tan danta jubbaland iyo mas-uuliyaddeena saaran markaan ilaalino qofku tiisa hoose qoyska uu geli karaa ta soomaaliya markaan ilaalinana ta jubbaland way hagaagi karaysaa maanta haddaan idhaahno 100% aan jubbaland keliya isku xisaabtano aan innaga keliya taladeena qaadano hareeraheenuna ay gubato maxaa soo baxay haddii maanta xamar intay qasanto oo caasimadii waxaysanto dowladdii dhexe ay halowdo ma u malaynaysaa inana wax qaban karayn dalka kaa soo gaaray halkaanu kaa kixinay waxay la tahay aan himigeenna iyo fikirkeenna kulligii aan kor u qaadno aan isku dayno inaan raadino waxa maanta aan doonayna wax ka badan waxa aan maanta raadinayna ugu fiican iyo soomaalnimo meeshaan ku gaari karay waxaan aada u soo dhaweynaya dadkii halkaan ku wada hadlayay ama gobol hoosoo gaara ha noqoto ama talguud ha noqoto in la heshiiyo in la wada hadlo in la tashado in la isafgarto intaasoo dhan waa shay mina diin waa wax diintu ina farayso soomaalinimadu ina farayso ma aha maanta waxa halkan laga akriyayey waxa qoys loo akriyayey waxa qoys loo danaynayay dan qoys maysan ahayn waxay ahaayeen qodobadu kuwa guud ahaan reer jubbaland hadday dadku u qaataan qodobadan inay reer soo qortay oo reer loo akriyaya maysan ahaynin kuwa qorayay iyo ka hadlayay iyo qoyska laftiisu waxay ka hadlayeen waxay ahayd maxaa dan gobolka u ah war cadaalad ha la wada sameeyo xuquuqda ha loo sinaado kan ha la yeelo wax cid gooni wadata ama cid gooni uga hadlaysaa mayna jir sidaasaa waxaan rabnaa inaan wada hadalku loo furaado gobasha nabaddu ay taallo iska daa jubbaland keliya howlkan aan dhisnay iyo kan kale ee weyn iyo daawad nabad iyo gobasha soomaaliyeed baa loo dhigay jubbaland keliya looma dhigay waxaa loo dhisay soomaalida macnuhuna ma aha inuu nin walba yidhaha ana maantaan dudsanahay xaajaha layla galo anaan xaajo gale waxay tahay inaan wax kasta oo wanaag isu soo dhaweyn midnimo walaalnimo soomaalinimo keenaya inaynu qaadano aan ka shaqeyno waxaa lagu heshiiyey in la fuliyaay waa run in la heshiiya wasaaradda laakiin fulintaas ah fulintu hadday xusnu niya timaado oo wanaag fiican iyo qalbi fiican la isula yimaado waxaan hubaa inay fulayso waad ogtihiin hadda gobashaan intaan jiitamaynay maamul baan sugaynay in la dhiso intuu jiitamayey intaan waxaynaynay waxay aada ugu badatay war ninkaan maamulkaanu haysto ee uu dib u sii jiidayo ee uu dhisi laayahay maxay tahay oo kan ilaa marka dabatuhu gaaro banaalaa ninku inuu liis soo qaraa oo dhib ku ah oo maamulkii isagu soo dhiso ku dhawaaqo oo tan maamasiya ku noqonaysa yani dareenka dadku wax walbuu gaari karaya laakiin waxaan ka doorbidayay inaan maanta iyagoo sidaan aan u fadhino oo tan oo kale intay dhammaato kabacdina aan wixii marxalada kale beri hoosii gudbi kara aan uga gudubno waxaan rabaa inaan hadalkayga ku darsado xaaladda guud ee soomaaliya maanta waxay maraysaa meel adag soomaalidu waxaan odhan lahaa haysu tanaasusho qof kasta oo soomaali ha qaato inuu compromise iyo tanaasul u sameeyo cidda walaalkii ee wax ka tabanaysa qof kasta oo soomaaliya iyuuna noqonin shisheeye riix ee ha noqdo sokeeye kalkaal iyo dad soo dhaweeye qof kasta oo soomaaliya mas-uul iyo oday iyo dhaqan mid waliba ha noqdo mid dadka isu keenaya waxaan odhan lahaa soomaaliya maanta cidna uma maqna ceella uma qon waxa ay iyadu samaysatay meel la tegaysaa ma nihin jazaariin
dadka waxtaraya iyo cidda abaarka kule aan garanaynin waan garanaynaa waananu mahadcelinaynaa cid kasta oo hooyo soomaaliyeed bakeeri biyaha siisa cid kasta oo dhiiggeeda orto amniga nagala qayb qaadata cid kasta oo hal iskuul iyo hal isbitaal dhista iyo qof kastoo wax bixiya oo caalamkaa waan ugu mahadcelinaynaa laakiin waxaa asalkii wuxuu yahay innagu aan mideenni usoo noqono soomaalinimo ha isku tashato ha isu tanaasusho makaasibta iyo mas-uuliyaadka dadku ay qabanayaan waxaa asal u ah oo shayga asalkaa uu noqonaya qofku waxa maanta isagu uu ku tanaasulay oo danta guud uga tanaasula waxaa hubaala iyada oo degdega oo ka fiican oo sidaa si fiican uga siiyaa inuu gaari doono beri oo beri ninkan uu tanaasulana uu garan karayo tanaasulka uu sameeyey iyo sida uu yahay iyo qaabkay tahay waxaana lahaa maanta dib u heshisiintan soo gabagabowday oo aan rajaynaya inay noqonayso jubbaland dib u heshiinaha ugu soo urursan ee hadda wax maanta sasoo taagani una jirin inaan fulinana ilaahay aan uga cabsanayno hadda dangaar oo kasii leenahay ayna jirin inay kuwa kale ee ummadda soomaali jawhar iyo hiiraan inay ku heshiiyaan inay maamul dhistaan oo isu tanaasulaan oo ay ku heshiiyaan meeshay noqon shirku iyo caasimadu tay noqon iyo madaxweynaha cidda la dooran waxaan ugu baaqaynaa kuwa galmudug inay isu yimaadaan oo ahlu sunna iyo dowlad goboleed galmudug isu yimaadaan si walaalnimo iyo ehelnimo intay u wada fadhiistaan waxa iyaga ka dhexeeya ay uga wada hadlaan cid kasta oo cid kale khilaaf ka tabanaysa waxaan rajaynayaa shaygu wadahadal buu ku dhammaadaa inay wada hadlaan weliba dadka soomaaliyeed iyagu intay isu yimaadaan ay wada fadhiistaan waa run walaalkay cabdi sheege waa horey baan hadalkan isugu qabanay waxaan anigu mar walba qabaa qofka noo dhexeeyaay inuunan xal ahayn ee ay tahay xalku dadku inay iyagu wada hadlaan waxaan rajaynayaa maanta xafladdan midii ka horreysay waxay ku xirmi lahayd iyadoo intaan oo dhan ay caddaan ka buuxaan oo la yidhahda intaan oo dhan buuxsan qadarta allay ku dhacday inayna dhicin waxaan kaga kalsooni badnahay intaan oo soomaali inay fadhido oo annaga aan isweyd waxaad ogaataan cid kasta oo garantoor ka noqoto ama tiraahdo heshiiskaasaan annagu sidan u waxaynayna innaga soomaalida inaan qofna inana khasbi karaynin waxna nagu samayn karayna waxaan annagu ku heshiino fulinteeda annagaa lanaga yaqaan maanta cidda marka iga tagaan wax iga juqaynaysaa ma jiro cid hadda labadana halalaha iga fadhiga soo riixaysaa ma jirto laakiin qofka damiirkiisu marka uu siiyo waxaan inuu wixiisi yahay fuliyo tallaabo ka galo hore u dhaqaajiyo qofka isaga wanaag uta wax waa la kala taban sida maanta wax loo soo qorqoray waxaa laga yaabaa boqolkiiba boqol inayna isu wada raacin sunnada kawniga ay ka mid tahay maanta qof odhan kara shay waliba 100% saasuu noqonayaa ma jiro laakiin maxaa taala waxaan anu qaadayaa waxa ila jira boqolkiiba boqol inaan fuliyo waxa aan kari waayo daaqadayda ka batana laa yukallifu llahu nafsan illaa wuscaha istidaacada qofku uu leeyahay ma dhaafo qofku inta awooddiisu ay tahay tabartiisu ay tahay sidan ay tahay intaas waxaan rabaa inaan idiin sheego anigu waxaan rabaa muddada maamulkaygan uu jiro inaan ka shaqeeyo nabadda inaan gobashaa soomaaliyeedna ku jiro taa jubbalandna ay socoto dadka la isu keeno waxaa ii soo muuqanaysa soomaali ay soo baxayaan jiil aan garanaynin waxa aynu nahay iyo shalay waxaana war intaynaan dhimanin kollayba waan soconaynaa war haynaga haro oo ubadkeenna aan u sheegno waxa aan nahay iyo waxaan nahay iyo taariikhdeena dhaqamada aan dibadda kala soo noqonnay iyo waxaan soo urursanay intaan meel dhigano aan keeni dib ugu noqono kuwan maanta muxarifiinta ee dagaalamaya aan dhaqanka suubana islaamka iyo kii soomaaliyeed iyo kulli intii loo sheego dadku aan iswacyigelin aan kala soo hadna carruurteena oo nin waliba ilmihiisa xataa hadduu arko inuu meesha khatar ku gelayo intuu ka soo qaado magaalooyinka ha keeno waxbarasho keliya loo raadiyo waxay la tahay aad baan idinku mahadcelinaya mar labaad iyo mar saddexaad gogosha dhammaanta way inoo xidhan tahay ma aha macnuhuna inay nabadii iyo gogosheedii xidhan tahay waa mid furan laakiin shayga asalkii waxaa weeyaan marti badan baa joogtay odayaal badan baa joogay reer jubbaland baa nahay jubbaland nina nin marti uma aha reer jubbaland
saaka nina nin marti usmani waan wada joognaa magaaladeeniinaan joognaa ciidamada amniga dhaqanka odayaasha kulliga waxaysan tahay ha la soo camiro ka dibadda jiraa ha yimaado ka gudaha jiraa ha yimaado ka ganacsiga wataa ha yimaado ka maalgashiga samaynaya ha yimaado aan dhulkeena dhisano ka soomaaliya nagala jirtana midda soomaaliya nagala jirtaiyo federaalkana waxay la tahay aanu guntan oo aan ku biirino 2016 hadda uurkiisu inahayo halkaan dadkeena jooga kuwa meel kala jooga Soomaali waa inaan wax ku biirin karay waxaan ku biirinaynaa muxuu noqonayaa inaan ra'yi fiican la tago war la isu tanaasulo war dariiqadana ugu fiican wartana sida aan geyno oo arrinta Soomaaliya aan xamarka ka hawlgalo inagoo xumaan iyo kala geyn iyo xinta u tagayno Soomaaliya maxaa dana maxaa xalo maxay ku mari kartaa aan tala fiican geyno aad iyo aad baan shirka ugu mahad celinayaa intii ka soo qayb gashay dagaalka shabaab in la soo afjaro oo aan dagaalka wada galo deegaanadeena aan xoreyna waa laga maarmaan ilaahay guusha uu siiyey walaalaheenna reer Puntland rabbiga gargaarka iska lahaa waxay dawaa'irteena raadinayaan dhibkii ilaahay dib ugu celiyey oo shacab iyo mas-uuliyiin iyo ciidan baa isu kaalmaysteen guul bay ahayd innagana sidaas oo kale inaan sidaa yeelo isku tashigeena aan samayno haddii ilaahay yidhaahdo iyay noqonaysaa aan ku talagalno dagaal shabaab aan ku talagalno dib u heshiisiin aan ku talagalno siyaasadda Soomaaliya oo dib uga qayb qaadano wanaaggeeda iyo taladeeda aan ku talagalno reer Jubbaland aan isla qaadano gobasha nabadda ee Soomaaliya inay halkan fidsanaanayso oo cid kasta oo Soomaaliya oo khilaaf ka jira gobol Soomaali aan u dhigano وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد قاسم علي وحر TV عالمي ستار مقالة كسمايو.